Assalaamu calaykum. Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay qoyskan ayaa wuxuu ka koobnaa inan yar iyo gabadh iyo hooyadood. Aabbahood wuxuu ahaa mid ka soo shaqeeya dibadaha, laakiin waxay gaadhay xilliyadii fasaxa isaguna lacag sidaa u sii badan xaafadda kagamuu tegin. Carruurta laakiin mar walba hooyadood waxay weydiin jireen aaway aabba muuna cuntay noo keenin muuna imanayn. Hooyadoodna waxay ku odhan jirtay xilli fasaxa ayuu ku jiraa, xilligan fasaxana inna waxba kama iibsanayso, inna waxba kama cunayso. Innagana lacag yar buu inooga tagay, waa inaan lacagtaa yaryaraysana. Carruurtii markay gaajadii u adkaysan waayeen, lacagtii loo dhiibay ayay bar ka mida soo qaadatay, inkii kalena waa ay dhigtay sida isha kale wax ugu soo iibiso. Wayna baxday. Carruurtiina iyaguna way sii sugayeen. Markii dambe waxay u soo iibisay cunto, dibna way u soo noqotay, halkii bayna cuntadii ugu karisay. Carruurta yaryari waxay ahaayeen kuwa u bartay cunto fiican, iyaduna mar walba wejiga way u wanaajin jirtay, hana ku odhan jirtay cuna haddaba cuntadii waa tani. Laakiin iyadu waxay ka fikiraysay mar walba lacagta yar ee hadhay, waxayna ku dhex wareegaysay qolka, waayo lacag yar baa u hadhay, welinana ninkii shaqadiisii looma furin. Gabadhii markii dambe waxay go'aansatay in ay shaqayso, isla maalintii ka dambaysay waxaa loo soo sheegay in shaqa loo halay. Iyaduna waxay ku tiri hore ayaan u soo baxaya, waan imanayaa. Umaynayna sheegin ninkeyga, iskalina umay sheegin. Carruurteedii ayaa iyadoo isla sheekaysanaya ay aayar dhaaftay. Carruurtii markii dambe waxay soo dabagalayna waxay ku yidhaah hooy halkad xilligan tagnis, cunto ayaad noo soo iibinaysaa. Markaasay ku tiri islaantii maya ee xaafad ayaan soo buuqanayaa, maxaad rabtid waan iin soo iibiya. Gabadhii ayaa markii dambe waxay ku tiri hooy aniga waxaad ii soo iibisaa ice cream. Inankiina wuxuu ku yidhi isaguna sidoo kale haway anigana ice cream ii soo iibi, waa xilligay kulaylaha ayaa lagu jiraa. Iyaduna waxay ku tiri haddaad aayar u sii fadhidiid waan iin soo iibinayaa, wax walbaad u baahan tihiin. Carruurtiina waxay ku yidhaahdeen waan sii fadhinna ee noo soo iibi. Islaantu laakiin waa ay sheegin inay shaqo u baxayso, sidii bayna ku soo doonatay shaqadii. Shaqadeedii waxay noqotay islaan weyn oo gabowday in ay dhowrto aroortii oo dhan ilaaliso cuntadeeda iyo dawadeedana ay ka shaqayso. Waxayna ahayd mid si fiican uga shaqaysay maalinteeda koowaad. Maalintii markay dhammaatay ay islaantii xitaa dawadii siisay ayaa markii dambe islaantii waxay bilowday in ay lacagtii siiso oo lacagtii u tiriso. Gabadhiina markay lacagtii ka qaaday sii baxayso waxay ku tiri maxaad u baahan tahay aan kuu qabtaa, ma wax kale ayaad rajaynaysaa oo aan kuu sii qabtaa. Islaantii laakiin waxay ugu jawaabtay maanta si fiican ayaad ugu shaqaysay, waxaan u baahanahayna ma jirto, ora adigaba carruur ayaa ku sidiisay u tag, anigu wax walba waad ii dhammaystirtay. Gabadhii waa ay faraxday, lacagtiina way ka soo qaadatay, waxayna tagtay suuqii siday u soo iibso khudaartay carruurtu u baahnaayeen. Waxayna bilowday inay khudaartii ay eegto. Khudaartii markii intay rabto dhan ka iibsatay, lacagtii waa ay tirisay, ninkii way siisay, khudaartiina waa ay soo qaadatay. Suuqiina way ka soo baxday, waxayna soo gashay waddo. Waddadaa waxay ku aragtay ice creamkii oo yaala, markaasay tiri carruurtaan u sii iibiyo inta lacag ka hadhay. Laakiin waxay aragtay lacagtii iyadoo tirinaysa in gacan lagu soo taagay oo lacagtii oo dhan markii dambe laga xafay. Alaabtii hoostaada ee hoosteeda dhigatayna waa laga qaatay. Gabadhii waa ay qaylisay, dad fara badanna wadadana ay joogin. Markii dambe ay si xun u qaylisay ay dad fara badan iskugu urureen. Dadkiina waxay moodayeen in ay waalatay. Gabadh baana u soo dhawaatay markii dambe ku tiri maxaad la qaylinaysaa, maxaa kugu dhacay? Dadkii oo dhan adiga ayay ku soo daawanayaan. Gabadhii markii dambe iyadu ooyeysay waxay ku tiri lacagtii maantoo dhan soo shaqaynayeen carruurta xusiinayay ayuu nintoogii qaatay. Maantoo dhanna waan qaylinayay, qof waxay qabtay ma jirto. Gabadhii waxay ku tiri ilaahay baa wax ka sayr badan ku siinayay, walal xaafadda iskaga noqo. Dadkiina markii dambe waa iskala kala tegeen, iyadoo keliya ayaana soo hadhay oo meeshii ka ooyeysay. Markii dambe ooyintii ka daashayna meel waxaa jiri jirtay beera xaafaddeeda ka dambaysay. Halkii ayay iska soo fadhiisatay siday ooyinkii ugu dhammaysato. Laakiin islaan ayaa sugisay maantoo dhan. Markii aamus weyday ayay ku tiri hooya haddaba madaxii ayaa ku kacee, bal aamu oo bal in yarun isku nax. Markaasay ku tiri hooyo lacagta nintaasoo dhan soo shaqaynayay ayuu tuug aayar qaatay. Dadkuna maaha dad cadaaladda aqaano igamay qaaday. Markaasay ku tiri hadday arkayaan way kaaga qaadi lahaayeen, laakiin nabayba arkayn. oo dadkay qabsani
markaasay ku tiri aniga waxay sugaysaa carruur yaryar ninkaygina dibadda ayuu joogaa bilaa shaqowna ku yahay aniguna carruurta waan ka qarinayaa waxaanan ku uri qofaan soo booqanaya markaasay ku tiri iminka waayihi maxaa kuu xala maxaad rabtaa inaad samaysid bal ooyintan iska daa waxay ku tiri waxay iga sii sugayaan welibana ice cream inaan siiyo waayo waa xilli kulaylaha waxayna igu laadeen kulayl baana dilay markaasay ku tiri ilaahay ayaa talan doona ee shaydaanka iska naa ooyinteenna iska daa oo iyagana dib ugu noqo waxaad samaysaa geedkanna meel aad jeceshahay adigu ka beer waxaa laga yaabaa inuu hadhow toole ku anfici doono qaado geedkanna gabadhii iyadoon geedka xitaa niyo wahayn ayay bilowday in ay beerto markay beertay dhammaysayna waa iskaga tagtay oo xaafadeedii ayay dib ugu noqotay carruurtii waxay ku yidhaa hooye iskariinkan nuugu baran qaadayna sii maantoo dhan ayaan maqnay aniguna waan ku suganay waxa qalabana maanu samayn iyaduna waxay ku tiri waan soo iloobay ee beritoole markaan baxo aan shaqo tago ayaan wax walba in soo samaynaya carruurtiina maalinta waayihii bay ku yidhaahdeen maalintii labaad haddana wax cunto sidaa usii badan maa ihiysad hooyaduna waxay ku yidhaahdeen hooye maanta ma intanoo keliya ayaa cuntadii taala islaantiina waxay ku tiri haa intanaa taala laakiin iminka ayaan baxayaa oon wax fiican inoo soo iibinaya ice-creamkiina waan kuu soo iibinaya iisii fadhi sidii bayna ku baxday waxayna u tagtay islaantay u shaqayn jirtay islaantii markay u soo dhammaysay lacag fiican ayaynay haddana maalintaas soo siisay islaantu waxayna ahayd islaan aad u fiican oo gacan furan gabadhii lacagtii bay soo qaadatay waxaynay soo martay meeshii beerta agteedii beertii waxay ku aragtay geed intee leeg oo ice-cream fara badan soo bixiyey oo dhalay gabadhii waa ay yaabtay waxayna tiri ice-creamta intan leeg geedkan yaa dul saaray iyadoo ka yaaban geedkii ayaa markii dambe waxay aragtay haddana carruur qaylinaysoo leh haba naga iibi ice-creamka aad buu u macaan yahay maantoo dhan baan halkan taagannahay qof naga iibiyana waan weynay gabadhiina waxay ku tiri lacag yaryar keena oo iyagu awoodi karayaan carruurtiina waxay bilaabeen inay lacagtii bixiyaan iyaduna waxay bilowday in ay siiso ay u soo jarjarto ice-creamkii ilaa markii dambe carruurtii ice-creamkii dhammaantood ay wada cuntay dhammaantoodna mid walba waxa uu jeclaa waa u qaatay gabadhiina ika faa'iiday lacag aad u fara badan carruur fara badanna waa ay ka cuneen intii hadhay ee uu ka dhacay maalintaasi gobolkuna waa ay ururisay oo kolba mid ayay meeshii ka saarisay ilaa markii dambe ay wada dhammaysay oyna ku gurtay bacweyn oo juuliyada bacdiina iyadoo faraxsan ayay carruurtii u qaaday wayna u sii adeegtay carruurtii markay u tagtay ay arkeen bac fara badan ee hooyadoodu sido ayay ku tiri maanta haddaba waxaa nin keenay ice-cream aad u fara badan waa aad rabteen carruurtii siday u cunaysay hooyadood xitaa waxay ku tiri yayna cuntoyin xanuunini beri u kala dhigta gabadhii markii dambe waxay furatay tukaan weyn oo wixii macmacaan iyo ice-creama lagu iibiyo waxa uuna noqday tukaan weyn oo la wada garanayo carruurteedana mar walba hadiyad ayay kaga farxin jirtay oo u keenaysay sheekadeenii maantana intaas ayay ku dhammaatay